Tuulo yar waxaa ku noolaa boqor iyo xaaskiisa iyo gabadh uu dhalay. Boqorka iyo xaaskiisa iyo gabadha yar uu dhalay way isku faraxsanaayeen ilaa intay xaaskiisii xanuunsatay. Waxayna teeda yar u rajayn jirtay inay hesho gabadh sideedoo kale hooyo u noqota, ilaalisa, wax badanna nolosha ka kaafisa. Dardaartay ninkeygay ku tiri, ninkaygiiyow markaan dhinto guurso. Markaasuu ku yidhi ma guursanayo. Markaasay ku tiri anigu waan isagoo waan dhimanaya guurso. U helo inatayda yar qof ilaaliya. Markii dambana way dhimatay. Waxaana eegay ninkii saaxiirka ah. Wuxuuna ku yidhi gabadhaadu way dhimatay. Ninkiina halkii buu murug qabsaday. Markii dambe ee la soo aasay habeennimadii ayaa boqorkii wuxuu u yimid inatiisii yareyd uu ku yidhi inataydii yarayda aabbo, hooyadaa waxay igu dardaartay inaan guursado gabadh kale. Aroortii dambena waxa u yimid ninkii la taliyihiisa ahaa. Waxa uuna u sheegay inuu hayo gabadh aad iyo aad u fiican oo u geli karta halkii xaaskiisii hore. Ninkii boqorkiina wuxuu ku yidhi anigu aan rabin waxay igu qasabtay gabadhaydii Allah u naxariistee. Sidaa daraaddeed unbaan u guursanayaaye weligay maan guursadeen oo gabadhayda yar unbaan haysan lahaa. Laakiin iyada ayaa waxay igu tiri gabadheena yar inan inoo ilaaliso oo aad u fiican guurso. Intii dambe ayuu arooskoogii dhacay, boqorkii iyo gabadhii cusbayd. Tayarna waxay aabaheed weydiinaysay aabbo gabadhan ma hooye ii noqonaysaa isna wuxuu ku lahaa. Tayarna waxay ku tiri markii dambe hooye kusoo dhawow guriga. Iyo kadib islaantii la keenay gurigu waxay isku beddeshay islaan aad iyo aad u kibir badan oo shaqaalaha iyo dadka guriga jooga dhiba. Intaa Tayar waxay lala dhaqmi jirtay si arxan darro ah oo waxyaabo badan ayay u diri jirtay oo inay qaban karayn. Hadday diiddo Tayarna ciqaabi jirtay oo waxay ku ciqaabi jirtay ciqaabo kala duwan sida inay dhirbaaxdo. Beriye kadib way dhashay gabadhii oo finan wejida ku leh. Teeda yar waxay ahayd mid aad u jecel Tayaree kalena waxay u diidi jirtay cuntada. Waxayna ahayd Tayar mid mar walba u cabata hooyadeedii dhimatay. Intay maalin maalmaha ka mid ah hooyadeed soo baxday, Tayarna u sheegtay wax walba. Markii dambe tii yareed hooyadeed waxay ku tiri ha warwarin, aniga ayaa kuu haya wax walba. Hadday gaajo lagugu dilayna aniga ayaa kuu haya. Oo kildhigan bay ku tiri, kildhigan wuxuu kaa caawin doonaa waxyaabo fara badan sida haddaad gaajoosid waad weydiisan kartaa wax walba oo nolosha kugu adkaadana isaga weydiiso. Tii yareydna waxay ka qaadatay kildhigii, islaantiina way baabaaday. Markiiba waxay weydiisatay tii yareyd iyadoo aad u gaajoonaysa inuu cunto siiyo. Marna waxay ahayd maalmihii dambe marka lagu yidhaahdo cuntada waan kuu diiday, qolkeyga ayay toos u geli jirtay. Maalin ayay gabadhii aabaheed ka shakiday inateeda yar ku tiri bal orod soo eeg tani waxay samayso. Tii yareyd ayaa aragtay tii kaloo dalbanaysa cunto ka dalbanaysa waxay hooyadeed siisay. Aad iyo aad bay ula yaabtay. Waxay tiri hooyo waa inaan u soo sheego waxa meeshan ka dhacaya. Markii dambe waxay u soo carartay halkaa iyo hooyadeed na u sheegtay wax walba ay soo aragtay, kildhigay haysatay iyo wax walba. Islaantii markiiba waxay tiri waan ogaaye ka waran inay naagta yar wax qarinayso. Si degdeg ah intay u soo kacday ayay kildhigii ka qaaday kana kala jebisay tii yareyd. Tii yareyd markii dambe ooyin bay bilowday. Kadib hablihii yara aad bay u weynaadeen wayna qurux badnaadeen. Markiina waxa u yimiday amiir kale oo ka raba inuu guursado gabadhiisa weyn. Maalintii dambe ayuu amiirkii u sheegay in gabadhoodii weyneed la soo doonayo. Wuxuuna ku yidhi waa inaad inateena yar diyaarisaa. Iyadoo aad ugaga xun bay ku tiri waayahay aniga ayaa diyaarinaya gabadheena. Anaan u diyaarinaya sida ugu quruxda badan leh. Kiiba intay fikirtay ayay waxay u tagtay saaxir inay uga sheekaysay wax walba jira. Isna wuxuu ku warwarin aniga ayaa ku siinaya wax kaa fogeeya naagtaas. Wuxuuna soo siiyey musbaar kaasuu ku yidhi musbaarka nolosha Tayar wax badan ayuu bedeli doonaa. Una musbaarkii way soo qaadatay waxayna la timiday xaafadda. Yareydna waxay ku tiri kaalay inataydii yareeda ku hagaajiye waayo aroorta waa xafladaadii. Yareydna way iska rumaysatay. Markii dambena islaantii u hagaajinaysa waxay ka taagtay musbaarkii
ilaa intay tii yaray isku beddeshay shimbir.